السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تهود أنا قد جيسنا وبرنامج كان قلبني هذه الجورة على كده جيستان ريا برودكشن تي في يوتيوب wararka ee galabna waxa uu doorka dowladda oo ku eedeysay wariye Abuja in uu yahay al-shabaab loona haysto dil gabar Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada galmudug xubno caan ah oo lagu soo kordhin doono ciidamada danab oo la wareegay deegaano cusub booliska Soomaaliya oo war ka soo saaray dilkii Abwaan Bashiir Macalin Maxamuud Jubbaland oo laga reebay maamul goboleed dowladda federaalka Soomaaliya lacag u dirtay qorshaha Mareykanka ee hadduu uu geeriyoodo Kim Jong Un iyo gabadha bedeli karta intaasi waxay ahaan warkaya koobanaadna waxaad ku soo dhawaataan isaga faahfaahsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay kiiska wariye Maxamed Abdiwahaab Abuja oo magaalada Muqdisho ku xiran tan iyo 19 bishii February qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sababta loo hayo Abuja ay tahay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab loona haysto in uu ku lahaa dil ka dhacay magaalada Muqdisho hay'adaha amniga ayaa gacanta ku haya Maxamed Abdiwahaab Nuur Abuja oo ku eedeysan in uu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta sana Abuja ayaa loo haystaa in uu qayb ka ahaa fal dambiyeed la xiriira dil loo geystay marxuumad Baxsanay Booley dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere taariikhdu markii ahayd 6 bishii 3 2019 wasaaradda ayaa intaasi ku darayay in hay'adaha amniga ay eedeysanaha dagaal dacweedkiisa u gudbiyeen hay'adaha garsoorka ee ku shaqada leh warka ka soo baxay dowladda ayaa iimaanaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyay ay soo tarayaan baaqyada loo jeedinay in ay xoriyadiisa dib u siiyaan wariye Abuja oo ah tafaftiraha idaacadda Higsi xoriyadiisana dib loo siiyo ciidamada commandoska Soomaaliya gaar ahaan guutada 16aad ee Danab ayaa maanta howlgal ballaaran waxay ka sameeyeen deegaano ku yaala dowladka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose sida aan wararka ku helinay ciidamada ayaa howlgal gaar ah waxay ka sameeyeen deegaanada Jilib Marka Gandirshe iyo Dhanane halkaas oo la sheegay in ay ku sugnaadeen xarakada al-shabaab sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan Danab ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka intii uu socday xarakada al-shabaab isaga baxeen deegaanadaasi ciidanka commandoska Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ballaaran waxa ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo horay u maamulayeen xarakada al-shabaab war ka soo baxay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa lagu faahfaahiyay dil shalay dambe xaafadda Argentina ee degmada Kaaraan loogu geystay Abwaan Bashiir Macalin Maxamuud sidoo kale ka tirsan kooxda Heegan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed qoraalka taliska ayaa tacsiil loogu diray ehladii marxuumka iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed oo uu muddo la shaqeynayay sida lagu sheegay warbixinta sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in Abwaan Bashiir uu ahaa nin ay ku weyn tahay dowladnimada iyo adeegida ummadda Soomaaliyeed dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed dableyda alifleyda iyo dhammaan saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar Allah u naxariista Abwaan Bashiir oo ahaa nin ku weyn tahay dowladnimada iyo adeegida shacabka wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uuna ka baxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka taliska ciidamada booliska Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland ahna gudoomiyaha guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee maamulka Jubbaland mudane Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in aysan weli helin min halkii milyan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay u fasaxday maamul goboleedyada dalka Darwiish ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada xeebeedka Kismaayo ayaa carabka ku dhuftay in akoonkooda ay ka fiiriyaan lacagtaasi oo loogu talagalay la dagaalanka cudurka coronavirus balse aysan weli helin sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in maamul ahaan aysan haysan dhaqaale ku filan oo ay haatan kula tacaalaan ka hortagga iyo ka xakameynta xanuunka safmarka ee coronavirus wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa ku baaqay in aan la siyaasadeen dagaalka lagula jiro cudurka oo saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka oo dhan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo haatan khilaaf siyaasadeed u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland kaas oo saameyn ku yeeshay wada shaqeyntii labada dhinac Soomaaliya oo ah dal hadda soo koraya ayaa waxa farabaan ku haya cudurka COVID-19 waxaana la xaqiijiyay kiisas ku dhow ilaa 300 oo qof oo badi ku sugan magaalada Muqdisho wararka imaanaya magaalada Dhuusamareed ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay socoto la taashiyadii ugu dambeeyay ee lagu soo magacaabayo golaha wasiirada maamulkaasi madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa waxa xalay ilaa iyo saake laga dareemaya mashquul la xiriira magacaabista golaha wasiirada maamulka Galmudug waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan oo madaxweyne qoorqoor ku dhawaaqo golihiisa wasiirada sida aan wararka ku helayno waxa inta badan
diyaarsan liiska golaha wasiirada cusub ee galmudug waxaana hadda socda la tashiyadii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqayo madaxweynaha galmudug ayaa wararku sheegayaan in ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah oo qaarkood xilal ka soo qabtay dowladda federaalk Soomaaliya waxaa sidoo kale ku jira dhalinyaro qayb weyn ka soo qaatay ololihii qoorqoor magaalada Dhuusamareeb waxaa isugu tagay dad badan ayaa damac uga jira in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub ee galmudug waxaana la filayaa in madaxweynaha maamulka galmudug saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada wixii warar ah ku soo kordhaw magacaabista golaha wasiirada galmudug kala soco Rege Production TV YouTube dowladda Mareykanka ayaa diyaarisay qorshe xoogan oo la xiriira Kuuriyada Waqooyi kaasi oo ku talagalay musiibo bani'aadanimo oo dalkaasi ka dhacay haddii hogaamiye Kim Jong-un uu geeriyoodo waxaa sidaas wariyay telefishinka Fox News arrintan ayaa imaanaysa iyada oo ay jiraan warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee Kim Jong-un qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka gaar ahaan CNN iyo Bloomberg oo soo xiganaya saraakiil dowladeed ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ku sugan yahay xaalad halis ah kadib markii qaliin lagu sameeyay wadnaha si kastaba ha ahaatee saraakiisha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shaki geliyay warbixinta sheegaysa in Kim Jong-un xanuunsan yahay iyaga oo sheegay in aysan jirin wax astaamo qayrul caadi ah oo ka imaanaya dalka Kuuriyada Waqooyi ay ahaataba Mareykanka ayaa u muuqda mid u diyaar garoobay xaalad kasta oo suurtagal ah dowladda Mareykanka ayaa mar hore dejisay qorshe xoogan oo la xiriira marka meesha uu ka baxo Kim Jong-un iyada oo xisaabta lagu darayo caqabadaha ka dhalan doona dhimashadiisa ayuu yiri sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka oo la hadlay Fox News sarkaalkan ayaa sheegay in ay kadib marka uu meesha ka baxo Kim Jong-un ay dhibaato bani'aadanimo ka dhalan doonto Kuuriyada Waqooyi iyada oo malaayiin qof ay wajihi doonaan macluul isla markaana malaayiin kalena ay u qixi doonaan Shiinaha sarkaal sirdoon ah ayaa u sheegay Fox News in qayb ka mid ah qorshaha uu si xoogan isugu halaynayo Shiinaha si ay u soo farageliyaan gacanna uga geystaan maareynta xaaladda gudaha Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira u dhawaanshiyaha Shiinaha ee Kuuriyada Waqooyi iyo dhibaatooyinka farsamo ee Mareykanka uu ka wajihi karo in uu gargaar bani'aadanimo siiyo dalkaasi inkasta oo Kuuriyada Waqooyi weli aysan shaacin cidda bedeli doonto haddii uu geeriyoodo ama xaalad caafimaad darteeda oo shaqayn kari waayo haddaba khubarada ayaa rumaysan in walaashiisa Kim Jong-un ay noqon doonto hogaamiyaha cusub ee Kuuriyada Waqooyi ugu yaraan muddada xaaladda kala guurka ah khubaro kale ayaa rumaysan Kuuriyada Waqooyi ay si wada jir ah u maamuli doonaan hoggaanka ama ka ugu dhow xisbiga talada haya si la mid ah midoogii Sovieti kadib geeridii Stalin